wararkii ugu dambeeyay dagaal mar kale ka qarxay magaalada Garowe. Dhanka kale, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo jiho cusub kaga dhaqaaqay Ceelbuur. Warbixinadaas oo faahfaahsan ayaan idin hayaa, balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka, waxaan ka codsanayaa inaad na soo follow gareyso, sidoo kaleetana muuqaalkan aad like gareyso. Kaba sii wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada. Aan ku bilaabay wararkii ugu dambeeyay dagaal mar kale ka dhacay magaalada Garowe. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo xalay mar kale ka qarxay bartamaha magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal, kaasoo laga dareemay xaafadda Israac ee gudaha magaaladaasi. Taliye ku-xigeenka booliiska gobolka Nugaal oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay sida uu ku bilaabmay dagaalka oo qaatay ku dhawaad saacad, wuxuuna sheegay in dagaalka uu u dhaxeeyay ciidamada amniga iyo koox hubeysan oo tagtay saldhigga Israac. Wuxuu sheegay in markii hore dhacdada ay ka bilaabatay shil gaari oo ay geysteen kooxda hubeysan, kadibna ay isku dayeen inay qalqalgeliyaan saldhigga. Dhacdada aad aragteen oo ka dhacday saldhigga Israac waxay markii hore ku bilaabatay wiil la dhaawacay niman cabsan oo sarqaan ah baa gaari iyaga oo xawli ku wada ayaa gaarigii ka horeeyay gadaal kaga dhaceen. Haddii ay ku dhaceen baa haddana ninkii gacan qaad kale loo geystay waa la dhaawacay, saldhigga ayaana la keenay ayuu yidhi. Sidoo kale wuxuu ku daray inay gurmad ciidan dalbadeen, kadibna uu dagaalka sidaas ku bilowday, balse ay isdifaaceen ciidamada booliiska. Intaas kadib raggii waxay isku dayeen inay qalqalgeliyaan saldhigga, waxayna u kala baxeen iyaga oo leh maxaabiista waan sii daynaynaa, adinku ciidanka xabad baad dhex martay iyo nimanka mooryaanta ahaa. Kadibna waxay dalmadeen gurmad gaari tignika ah u soo baxay iyo gawaari kale, islamarkaana annagana waxaan la xiriirnay madaxda ciidanka xukunta, iyagana ciidan ayaa laga soo dabadiray, qaybna dhex ayaa lagu qabtay. Gurmadkii dambana iyagoo halkaas xabad ka ridaya bay dib u celiyeen ayuu sii raaciyay. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay dagaalkan, kaasoo uu soo gaaray dhaawac fudud, sida uu xaqiijiyay taliye ku-xigeenka booliiska gobolka Nugaal. Khasaaraha hal nin oo dhaawac fudud ah baa la ii sheegay, arrintuna sidaas ayay ku bilaabmatay ayuu yiri taliye ku-xigeenka booliiska gobolka Nugaal. Waxa kale uu sii raaciyay waxa fidno ka taliska ama ka shaqeynaya amni darrada waa dadkaas ku xiriira muqaadaraadka, inta uu gurmanaysana waa inta ayaga la midka ah. Dhanka kale, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo jiho cusub kaga dhaqaaqay Ceelbuur. Ciidanka xoogga dalka oo garabsanaya xoogagga deegaanka ayaa jiho cusub kaga dhaqaaqay magaalada Ceelbuur oo la doonayo in laga saaro kooxda Al-Shabaab. Ciidamada oo ka ambabaxay magaalada Guriceel ayaa ku sii jeeda deegaanka Jaw oo 50 kiiloomitir dhinaca koonfureed kaga beegan Guriceel. Jaw waxay ku taallaa goob istiraatiiji ah oo xiriirisa Ceelbuur iyo Guriceel. Raaca hore ciidamada oo gelinkii dambe ee Khamiistii ka baxay Guriceel ayay raacooda dambana Jimcihii ku baxeen dhabbihii ay ciidamadaasi qaadeen. Taliyaha guutada 15aad ee qaybta 21aad Gaashaanle Cabdifataax Xaruuse Daahir ayaa hogaaminaya ciidamada ka ruqaansaday magaalada Guriceel. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Jenaraal Cabdulaahi Cali Caanood ayaa tilmaamay in ciidamadu ay hadda ku sugan yihiin tuulada Dhagaxweyn oo 7 kiiloomitir u jirta deegaanka Jaw. Ciidamada waxay ku sugan yihiin jiida loo cayimay oo ay ka howlgali lahaayeen markii dagaalka uu bilowdo, ayuu yiri afhayeenka oo shalay jir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho. Ciidamada ayuu qorshahooda yahay in ay Al-Shabaab kaga sifeeyaan inta u dhaxayso deegaanada Jaw iyo Burujeed oo qiyaasii 20 kiiloomitir isu jira. Ciidamada ayaa ku fidi doona tuulooyinka hoostaga deegaanada iyo dhulka miyiga. Wajiho kale oo la doonayo in culays laga saaro kooxda Al-Shabaab, iyadoona uu qorshaha yahay in laga suuliyo deegaanada hoostaga iyo kuwa kale oo ku dhow magaalada Ceelbuur oo ay ku leeyihiin saldhigooda ugu weyn ee gobolada dhexe. Sidoo kale, ciidamada ayay tahay inay geedgeed u xaqiijiyaan amniga dhulka miyiga iyo deegaanada fogfog ee lama deegaanka ah,
ka hor inta aanay gudaha u gelin magaalada Ceelbuur. Gudoomiyaha degmada Guriceel Anas Cabdi Macalin ayaa sheegay in dadka reer Galmudug ay kabaha u gashteen sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen Al-Shabaab. Ceelbuur waa xudunta howlgalka ka socda deegaanada Galmudug waana goobta ugu muhiimsan ee shabaabku haatan ka haystaan gobolada dhexe.